حسن أديات بعض ما هتصنتين برنامج كنا دقل غيب كشو أنت أين نوجلين وحبر الشذا هذه يصير أتكون قاعدين عند نقطة قدومية أو كارتين من هذا التاريخ هذا هو الصومالي دي بنقول أما سنت عبد الساهريري فرصة عن إن لو ذا الصومالي ذا وحيرك كسب سنت تاريخ نوليد كيجا شرف أيتها هاي وأنا إذا كم هذا علنايا أنا جاورت حسن عبد الله مع العالم يا لينها مقعي دمسترن وحنانية كل شيء حافظ التوفيق كون سجال بقول سديت إن سجالكي إشتالك بنادر أيوة إشتالكي ده هاي ده لقيها لكن حافظهان أنا دقنين حافظ التوفيق دقالك سوكي واسكبل عضي حافظ كل دوام بعد دقني سكول كي جوهري أنا وحن كانت سكول محمود حرب الله هايو بلاش بوها أنا ولا شيء أنا لقي سكول كي بعدك سكوبتين مركو حلا بتان نسيب بالقبنا بتان نسيب كي هذا نقول جولستي حالات إنك الكهو مدعين أو ضد قف الكهو دعب سالي هاي هذا تنو حد هذا إنك الكيس مدعانه ضد الكهو أنا يراعي هاي هذا الكير بيله مركو نسيب بنسيد كويل ولا شيء مركو حلا لا بقف عدو مدعين سير قف على قف ريبو ولا شيء ما قبله ولا شيء يقولون هذا مركب قبلها مركب حبرتان ضد كانوا ما في حسنين ولا شيء على قريب مركب سيدي برضو حبر شو كبلها وانيجا سكول كمركب الله بس ندقين إن هذيك ظروفه أمني أجر أوجد حافظ جونك الله يا أنقرني ورهرها سيد سكول قبيل كيهم بيودق جرين مركب حالة سيحمات marka joonka marka goorno iskuulka deeway u adkaatina baawar soo raaca oo nin yar baaha marka halka kaga haray hadana xaafada joonka la hadana duruufo jira awgeed xaafada suuq xoolaha la hayo guuray oo ka yara qarqiisaneed xaafada joongal markay timaado nolosha xaafada joongal waxa sarar u badan yihiin sarta marka way ka qarqiistaa jiingada marka joonka suuq xoolaha guurnay suuq xoolaha marka u guurnaya iskuul albiri la hayo ligay oo hadana bilaash ah iskuulka albiriga ndiga jiray markii lacag laga dhigay asiga doo liga soo bixiyay lacagti baa la awoodi waayay hadana wax iskuul kale oo qaraabada leedahay suuq xoolaha ku yaal waa la keenay kiiba waxaan ku dhameeyay dugsiga hoose dhexe marka kadib iskuul sare wax ma guri lahaay waan oo de iskuul caan ah oo la yaqaan barashadaadii ilaa dugsiga sare Soomaaliya ku soo qaatay kadib dagaalkii Itoobiyaanka baa bilowday Itoobiyaanka wada soo galeen بلاي ودك كدعدي 2006 تضبادي بشي تضبات 14 مالنت شركة دبشين دبالها ويلا قبجري بان قارك سرعي عمر كسمايا يعني ماضي أنا وحوه ذنين لكن كين يراو ماشي أوسع أنا أقول محك قبضونه نولل رادينا هي إمسجر ماذا هيد مركها طوالي تجربها مركها مكلي ذا بصباحي مسبب كلي بصباحي واي وحاني ما كسمايا وهذيك dhaqaale ma haysano maqaayad oo gawaarida jaadka keenan meeru jaadka keeno waan maqaayadi baan adiga waxaan ka arkay fursad ah in gawaaridan saa ku barto darteed maqaayadan ka shaqo bilaabo ninkii baan dhaynay shaqaysi kabalyeeri adiga marka 10 maalin kabalyeeri ah waxaan bartay dadkii oo Kenya jaadka ka keeni jiray waa saxan noqday Kenya baan dhahay sidii arinkii oo sheegay inaan dugsiga soo dhameeyay waa kii rabo Kenya sidii ba bilaash ugu maaday Kenya markaan imaaday Kenya de waxa waaye markaad Kenya imanayso waxay idin wax ma ogi waxa u socdo I don't know meel aad u socotay waxa u socotay mid dadka diriska dadka mid waa Kenya aaday dadkaas baan iska dabaracay peer pressure wallahi de meel cad wax kale marka Kenya imaaday waxa liigay dukaan oo kabaha lagu gado qaraabada leedahay markaan saddex habeen Kenya joogo oo qaraabaan ku soo degado waxa lahaynay aniga marti diinta waxay qabtay saddex habeen martida la soo dhaweeyo wixii ka dambeeyay lacagta ku darsanaysa meeshan dad baas ku darsan wadani yar oo aha waaga ugu bariyay Soomaaliyeed oo dadka qaraabay iyo hel isla cuni jiray waan ka imaade mugtahay marka meeshan in bonusibka dadkii dhan waa soo qaxay waxa la leeyahay dadkii waa soo qaxay dad ma qadul saar ma qaadi karno meeshan dadaas ku darsaday laakiin marti saddex habeen Kenya intee joogtay marka Kenya waxaan joogay 8 maalin bas markaan Kenya aan adiga saddex maalin joogo oo dukaan baa liigay oo kabaha ka tiraayo markaas baan waxaan bartay in muqalas oo dadka soo arko soo kaxinaya marka soo Afrika maxay tahay Afrika marka lacag fara badan baa marka ku baxda lacag badan baa soo tahriibay ka bixiyta waxay qof iga bixiyay male dad xoogaa yarna dad adiga asxaab aheen oo ehel aheen baa adiga lacag $400 camal siiyeen waxa kalena waxa nin yar baa ahaa oo waxaan arday iskuul aheen oo meesha tahriib rabtay waxaan ku dhahay niyo aniga
tobankii aad isku xirnatiin aniga waa ay fuuti kartiin ninka muqallaska ahaa 10 qof isku xirnanahay ninkan marka balaankii baa marka tobankii baa lagu daray tobankii baa lagu dhex daray muddo intee lag baa dhexda ku soo jirteen adiga muddo 4 bil aan dhex ku jiray ku dhawaad 4 bil xabs Zambia meel lahayo oo Central Prison of Lusaka waan lagu xiray bil oo ku jirnay Ramadaankii oo adiga ilaa 20 kii amal ku jirnay kadib waan soo Tanzania lagu celiyay Tanzania markii lagu celiyay aniga meeshii oo migration baan aniga ka dhuuntay ka baxsaday waan ka cararay marka gurigii baan raadiyay oo marka hore liiga kaxeeyay oo Tanzania aan ka joogay luqadna ma aqaani abaariyaako bisan ka aqaan luqadan iyo baadu fika waa yarahay camal waa tay maxaa kuugu daraa kale aan xabsiga ahayn intii jidka ku soo jirtay waxa igu darnaa habeen aan lugeynay oo roob weyn soo da'ay halka baa ahayd markaa waa xuduudda Kenya iyo Tanzania taas baa igu darneed roob aad weyn baa soo da'ay dharna lagu ma galnaa qaatid dhar yariis oo qafiif baan wadanay roobka Soomaaliya roob iska dhaxal way karo roobkaas kale biib u qabow bay wataan waa qarqaray marka gaari baa nala geliyay anagoo roobkan ugu da'ay dharkii baa igu qalalay habeenkii dhan anoo qoyan baan joogtay intay ku qaadatay marka Kenya marka ku soo baxdeen ilaa intii ay soo gaarisay South Africa adiga 4 bil ku dhawaad way halkana timi goorma soo gashay South Africa inta imaaday 2007 kii bishii 10aad dhamaadkeedii bishii 11aad adiga meelaha soo galay xasanow niyar baad ahayd waad soo tahriibtay qoyskii nicdii kulama soconin South Africa marka soo gashay xagad yeena wax ka bilowdo South Africa soo galay aniga horta niyo hami oo waxaan lahaa oo waxbarasho laakiin dadka South Africa u soo tahriibay ee Soomaalida badana waxay u badnaayeen dad illiterate ah oo aan waxbarasho lahayn marka waxa iyo dad oo warlords oo ahaa ama dad maxaakiinta ka soo cararay milishiin ku jira maxaakiinta ka soo cararay marka dadkaas ay iskaga badnaayeen marka qof yar oo imaado aad 2007 bay dadka yaraa ay bilowdeen marka reer buufisna ma heen aniga buufis ma aqoon because buufisku wuxuu galaa waxa weeyna si dhoofta buufiska reer buufis ma heen oo aniga buufiska wuxuu galaa qofka dhaqaalaha haysto aniga dhaqaalaha ma haysan South Africa xataa aniga maabka baan fiiri jiro shandal maabka in wax soo bartay maabka waraaq baa haysta maabkaasi markaan macquul ilma hayna la teegar xataa laakiin waxa liigu sheekay in oo lacag laga helayo oo lacag fiican lagu shaqeeyo $600 oo marka muhiimadeedu waxay ahayd inaan 2 sano shaqeysto oo aan jaamacad Soomaaliya kaga laabto Soomaaliya digi doonto intaas muhiimadeedu aan wadankaana 10 sano joogaysaa niideed ma haybo $5,000 $10,000 wax weyn agteeda ka heed dad shaqeysto inaan laabto xagad wax ka bilowday marka dukaan baa liigay oo adiga location marka arkay location waa dhulkan meelaha baadiyaha marka adiga 5 maalin joogay aniga waa ka soo tagay waxaan dhahay marabo way ku noqon weyday waxaan dhahay Soomaaliya dhaantay meeshan meel oo meesha la jiifay lagu kaadinayo wali ay caay kuma kaadinayo marka dadka nadaafada jecel marka masquul ma leh waa meel dadka la shaqeynaayo dad baadiye ka imaadeen fahmaysa oo nolosha nolol heer sare u tahay laakiin qof Muqdisho ka imaado oo shaqo gali jiray galabtii subaxdii iskuul aad jiray maalmaha kale booni qamiis jimcaha iska ciyaar jiray way ku adkaanaysaa marka aniga waa soo baxay meel Fordsparktan oo Newtown Mall agteeda waxaan ka shaqo bilaabay dukaan daahida iyo waxaas lagu gado oo Soomaali leedahay daahidii baa marka sida loo sameeyay bartay harqaamana ani goonigeeda furtay waxa waaye noloshii sidaas adiga ku bilaabatay kadib aniga markaan arko qof gaari wata ama qof dukaan leh aniga ma u ooy jirin ma u maseeri jirin qof ma arko laakiin buug wata ardayda horumarayso ta aan xiiseynayana waa taa sheekadaada waxaad kugu jirtay mar walba inaad wax baratid xaggeed iyada wax ka bilowday markaa maalmaha ka mid ah anigoo daahiyo meel ku dhajinayo maamo jaamacad wax ka dhigto oo muslim ah gurigeeda daahiye markaan u dhajinayo buugaag badan guri meel oo waxay ahayd oo library camal marka buugaagti baan iska daahiyaan ilo buugaagti baan iskaga leexday buugaagti baan iska fiiriyo markaas dhaaday adiga daahiyaan ku soo dirsaday marka wiil kale Malaawiyaan iyo Soomaali kale gurigeeda daahiyo ku soo dhaji jiray marka buugta waxaas ma ku leexi jirin marka buugta kule waxaan ku dhahay aniga shaqadaan ku qanacsanaa ku dhahay I don't want inaan shaqeeyo marka waxaan inaan wax bartaan rabaan ku dhahay one day inaan wax barto maxaa rabtaa inaan barto engineering iyo medicine marka qofka Soomaaliya ka imaadan engineering medicine wax barasho ahayn waxbarasho uma yaqaano marka
maamadii waxay dhahday okay waxbarasho ma blaagareysay luqadda ingiliishka ma aqaan aan ku dhahay luqadda ingiliishka inaan barto luqadda ingiliishka marka oo marketka looga hadlay markaas aqaana midda oo ya tii suuqiga aqaana oo maashi waxaas ya marka meel ABC lahaay bay igeysay waxay dhahday hadda ka soo tagto hadda ka soo tagto meeshaan shaqada oo geena dhahday laakiin qof shaqeysanayo waa ka soo tagay shaqadii meeshii igeysay marka biilkii hooyada iska rabaa marka hadana oo de hooyada culays baad xaqii kala ka saaran marka hooyada waxay leedahay waxbarashada aan dhamaanin maxay tahay dadkii faca guriga dhisanayaan marka dhibaatada South Africa wax lagu bartay tahay waxay tahay qof oo shalay maaday baaki wato oo xagga Soomaaliya daba ka dhistay guri sarka dhistay way dadka reerihi arkayaan oo marka qofkan kala marka iskuul joogin nin loser baa taa lagu leeyahay meel bisada lagu gado si aad labadii isku miisaamo marka biilkiisa aan diro adiga marka ingiliishka dhameeyay baan jaamacadda Blackgrey marka jaamacadda Blackgrey ani waxay $10 lacag jib ku jirtay jaamacaduna waa taymar jaamacadda waa UG University of Johannesburg marka medicine engineering Blackgrey waa liidiiday waxa la leeyahay shahaadada Soomaaliya waxay u qalantaa grade 11 oo wadanka u qalantaa waa hal sano oo dib dhaca waa inaad wadataa jaamacad hal sano Soomaali ah si aad jaamacad wadanka u hesho ama diploma bilaabaysa diploma marka engineering mesela medicine diploma ma jirto diploma marka maadada kali wixii kale lagu buuxsameen HR banana just wax barasho jecel HR kaas ka bilaabay waa human resource kii baan bilaabay human resource kii baan adiga dadka aan garanay bal hadoo macnaa human resource waa xuquuqda shaqaalaha waa adiga wax la xiriira ganacsiga oo la xiriira shaqaalaha sidii loo manage gareeyo shaqaalaha sidii loo maamulo warkii jaamacad digriga taas ku bilaabay diblomihii marka jaamacaddii baan meel Soweto lahayo wadana dadka Soomaalida meelaha oo dukaamada ku leeyihiin oo lagu dilo jaamacadda meel campus ku leedahay afar campus bay leedahay mid campus kamid ah liigay campuskay markaan tagay waxaan isku dayay marka 6 bil markaan inaan marka jaamacaddii inaan iskaga baxadan go'aansaday biilkii baa culus markaan bisi ka xagga reerka xamil bisi ka shaqo kartida waxaan ka shaqo kartida marka waxaan sameeyay marka maalin aan iska fikiraayo meel salaad iskaga dukanayo salaad duhurka dadka salaadaha aad u dukada wadaadadan miya laakiin duhurka baan iyo casirka iska dukadaadee maamoodii oo jaamacad dhigaysay waa xafiiskeeda gadaasheeda oo ingiriiska bixi jirtay xafiiska meesha ku leedahay coincident maaha waxaan wax iska ilaahay qoraayo waaye waxaan iska dibasay markii ingiriiska iga bixinaysay wixii aan iska dibasay dib isoo arag waaye maamada xafiis ku leeyahay meesha gadaal iga aragtay jaamacad oo dhiganayo waxay raadiyay ma xasuustaa maxaa ku dhacay maxaa u fikiraysi meesha maanta aan ugu arkay wiilkii oo ingiriiska jirmatido ingiriiskana 3 bil bay iga bixisay iyada wax kale ma saga waxay raadiyay maxaa u fikiray jaamacadna ka baxara ma ku dhahay gurigeygu ma ugu dhacday marka gurigeeda baan u tagay soonay ahayd maan ugu tagin waa mari way soo wacday gurigeygu ma ugu dhacday guriga ugu tagay arinka oo sheegay waxay raadiyay $100 biilkooda ana dhiibaayo waxbarashada ka bixin waxbarashada misterkana ka dhiibaayo maamii hindi ah waayo madax u qaawan yahay laakiin islaam waayo وهندية إسلام أو رئيس أفريقيا. مركو حتى أنا بيلك كادرة. بيلك أنا كادرة. مركو سؤال الناس جوكتو هلي قرابي واحد سكول جراني. ما بقولنا هذا ما أنت نادي تهريبة برازيل بقول تهريبة يعني وصدق دولار نوبانا وحبلا معها. لكن هذا تاع ريكي قد برا. ريكي دبوا حبرنا يا دي نوال بالو ملنا يا. هاي. وقتي وحبرشة مركز سيوة ذاتي. وحبرشة سيوة الجامعة دي بان فهمي. jaamacadii active ka noqday dadka hadlaba ah aniga dadka xuquuqdooda oo raasada dadkan u raadiyay baan ahay jaamacadii baa liga jeclaaday political ambitions baan ka yeeshay jaamacadda marka ururada ANC iyo DA-ga iyo EFF ta ku tartamo ardayda ururka ardayda aniga marka si kaliya ma tartamo marka independent DA-ga iyo waan marka ka tirsanayn ANC ka tirsaneen oo axsaabta ka tirsaneen marka codka markii la tiriyay 100 cod baa liga dheeraaday way yaabeen marka waxaan iska soo dhisay underground dadka buwarka baan abiilan u sameeyay marka saasaad ururka ardayda jaamacadda kuma noqonin way imaadeen sida ay timaadeen waxay dhaheen iyo ninkan next time adu EFF ku biiro ama DA ku biiro codkiisa uu ku biiriyo xagga marka let's caucus ina oo ninkan aan kan ya marka adiga part of them ka noqday membership kan saxay saaska ururka lahayo ANC-da waxa waaye farac ka tirsan ah oo ardayda ay xubin ka noqday oo marka waxa la PYL isku dhahaa ANC iyo YCL
ANC PYL isku dhaha waa ANC iyo xisbigan kale oo dooda communist party-ga SPC communist party waxa way abbreviation iga maqan iyo saaskada marka waa PYL isku dhaha waa Progressive Youth Alliance marka ANC Youth League-gaasi waa marka ANC laakiin fanki waxa siiso sidii waxa uu mid noqday marka inaan marka ka hor intaan taas noqonin waxa jirta marka gudoomiyaha ardayda foreign-ka ee jaamacad dhigtana noqdo وماشي مركا أرديد أجنبي جاء عبد العزيز ها gudoomiye noqday dhaqan ka Soomaalida oo laga aqoon jaamacadda inaan jaamacadii geeyo Soomaalida waxa lagu yaqaan tag shop qofka Soomaali arko tag shop bidaan marka Soomaali jaamacad dhigto kala jarkeeda la bandhigayo ma jirin marka jaamacadii baan waxa loo yaqaan baadii Soomaalida tag shop baa loo yaqaan waa dukaamada iridaha yariiska ka soo jeedaan baa ya tag shop Soomaaliga ka soo tag shop socdo inuu yahay dad iska ya marka inaan dhaqankaas dhaqan ka duwan oo ah inaan tusadeeyo marka ururkii ardayda ajnabiga madaxbaad u noqotay jaamacadda markii dambe ururka ardayda jaamacadda dhan madaxweyne noqday markaas waa gudoomiye maaha sanadkee baa marka 2016 iyo 2017 aan noqday waxa ka warhayaa in digriigaaga labaadna aad ka samaysay halkan jaamacadda maxaad ku qaadatay isaga waxaan ku qaatay digriigayga oo diblomaha digriiga ku xig waxaan ku qaatay BTech waxa la hayo human resource ka naftigeeda then masterkii waxaan ku qaatay operation management and engineering marka qofkaan garanay haddaan sidaa u macnee waxbarashada South Africa ee heerka jaamacadeeda ma dawladda dadka ka bixisa ma bilaash baa waa lacag la'aan ma qofka ajnabiga sidoo gali karaa niyow horta Soomaalida waxbarashada hadda waddankan dhigato waa saddex ay u qaybsiiyeen Soomaaliya ka timaaday oo waxbarasho u timaaday waana saddex afar fa ka jirto oo yaryihiin gabar kabtan joogto oo baajal lahayo Soomaali soo qaxday inta shaqo u timaaday shaqada marka ku wareereen ay silceen waxbarasho kaaga leexday oo iyagana wax bartay oo qaarkood PhD candidate ah Soomaali hadda ka shaqeysto joogan Dr. Xikam yar lahaa kamid ah qaar oo dadkaas soo qaxay lamid ah oo wali waxbarashada ku jiro iyo kuwa waddankan ku dhashay waxbarashada heersa jaamacad gaaray marka intooda way kala duwan yihiin qofka marka soo Afrikaan yahay deemaha waddanka u furan oo waxbarashada deemaha lagu bartaa qofka marka qaxootiga soo galo markuu galaayo cid oo confident siinaysa in wax laga bixinaa ma jirto laakiin markii qofka oo dhiirado galo waa laga yaabaa in hay'adaha UNHCR-ta hay'adaha Islaamiga Hindida inay ka bixiyaan laakiin marnaba Soomaali midaysan oo ardayda qofka hadda dhalashadii haysan baad leedahay hadda dhalashadii haysanin wax meel u saaran ma jiro shuli shil buu galaya markaas baa Ilaahay inuu furo aniga jaamacadda hal sano jaamacadaas iga dhiibtay 2 sano hay'ad Islaamiga iga dhiibay oo Hindi ah 3 sanana madaxweyne iyo ururka ardayda aan kamid ahaa ayaa ku caawisay qofkii madaxweynaha ah horta fano leeyahay budgetka jaamacadda laga dhiibaya qofkii ururka ka tirsan waa laga dhiibaya marka loo chairperson ka ahna waa liga dhiibay marka adiga jaamacadda xiriir la sameeyay oo iska ugu dambeyntii qofka dhalinyarada ee Soomaaliya ka yimi sidaadoo kale ku taamay in wax barto maxaad kula talinay horta waxbarashada waa go'aan qofka ka yimaado waxbarashada waa muhiim sida shaqada muhiim u tahay kala muhiim u tahay sida xaaska in la guursado muhiim u tahay waxbarashada muhiim u tahay marka qofkii xaas leh oo shaqo haysto inuu xaaskii iyo shaqadii burburiyo waxbarasho galo aniga ma dhahayo in hadii la isku wada karo waa wax wanaagsan laakiin qofka markuu yimaado oo xaas lahayn shaqo inuu shaqeysto waxna baran karo laakiin go'aan u baahan tahay waxay u baahan tahay in uu fahmo systemka qabka uu shaqeeyo waa un faham waa ka shalaya 4 sano oo South Africa ku noolaa inay iga qasarto waxbarasho la'aan waxyaalaha aan ka qowmay kamid tahay hadda intaan South Africa si joogi doonane inaan waxbarashada dhankeeda ku sii jiro ama aan wax baro dad ama wax barto ama aan hadda sheekooyinka Soomaalida baan qoraa aan tool history Soomaalida oo wadooyinka maamooyinka wadooyinka wax gado single mothers-ka waxaas wax ku qoraa marka iyada waxbarasho ay tahay Soomaaliya marka tagan taas oo kale waxaas